Wariye dambi baare ah oo lagu magacaabo Justin Sanderson ayaa wuxuu joogay garoonka diyaaradaha si uu u raaco dayuurad u socotay magaalada Tel Aviv. Wuxuu damcay inuu joornaal iibsado. Waxaa markaas aqoonsaday nin lagu magacaabo Joe Bowman, kaasoo wariyahan ka codsaday inuu u saxiixo maqaal magaciisa ku xusnaa. Justin ayaa ninkii u saxiixay waana uu macsalaameeyey. Markaas wuxuu wacay xaaskiisa taas oo ay cabaar murmeen. Markii uu kool ku dhammaystay, Justin wuxuu ogaaday in taariikhdu ay ku beegan tahay 15 Oktoobar. oona duulimaadka diyaaradda 10:15 ee isagu raacayay ee dib u dhacday iyadoona bixi doonta 10:15 PM. cajiib, waxaan oo dhan sidee iskugu soo aadeen. Justin wuxuu galay safka si uu diyaaradda u raaco. Wuxuu ogaaday inay dhibaato haysato mid ka mid ah rakaabkii, kaasoo ay shaqaaluhu u sharxayeen inay VIPdu ka buuxsantay oo keliya cunugiisa iyo xaaskiisa ay kursi u hayaan, isagana ay ku qasban tahay inuu meel kale raadsado. Justin ayaa ninkii ku wareejiyey kursigiisa, kaasoo aad ugu mahadnaqay. Justin wuxuu aaday qaybtii caadiga si uu fadhi u helo. Hareerihiisa ayuu eegay, wuxuuna ogaaday in Joe uu sidoo kale diyaaraddu saaran yahay. iyadoo kuraas fara badan ay bannaanaayeen ayaa nin weynin badani uu soo fadhiistay kursigii Justin ku xigay. Markii rakaabka la amray inay suumanka xirtaan ayaa Justin wuxuu jeebka kursigii ka horreeyey kala soo baxay samiicad MP3 ah. Bodkastiga daarna wuxuu ahaa show lagu magacaabo Enigmatic, waxaana ciwaan looga dhigay sirta naxdinta leh ee duulimaadkii 10:15. wuxuu hareerihiis ka raadiyey dhago oo wuxuu ugu dambeyntii ka helay jeebkii kursiga ninkii ku xigay. Ninku wuxuu u muuqday mid ka xanaaqay habdhaqankii Justin. Bodkastigii ayaa bilowday, wuxuuna ku bilowday iyadoo ninkii tabinayay uu dhahayo shaqaalaha diyaaradda ayaa rakaab ka dalbanayay inay suumanka xirtaan, oo sidoo kale roob weynin badan ayaa bannaanka da'ayay. Justin daaqada ayuu eegay oo waxaa bada'aya roob weynin badan. Bodkastigii waa uu sii socday, rakaabkuna waxba kama oga in duulimaadkooda 10:15 uu wax ka yar saacad gudaheed uu ka lumi doono raadaarada koontaroola diyaaradaha oo aana dib dambe loo maqli doonin. Justin kursigiisa ayuu iska sii fadhiistay halka ay diyaaradduna hawada sii galaysay. jabtarka labaad ee bodkastiga waxaa ciwaan looga dhigay qaybtii naxdinta lahayd. wuxuu Justin bodkastiga ka maqlay in kabtankii duulinayay diyaaraddii la waanayay lagu magacaabo Captain Donner. Justin ayaa dhagaha iska bixiyey, wuxuuna ninkii ag fadhiyey weydiiyey in duuliyaha diyaaradda lagu magacaabo Captain Donner. Ninkii ayaa ku jawaabay garan maayo. Justin wuu ka cudur dartay, wuxuuna ninkii ka codsaday inuu bodkastigan dhegaysto, isagoo u sharxayay in diyaaradda ay hadda saaran yihiin ay badweynta ku dhex burburi doonto. Ninkii ayaa Justin u bog waayey oo meesha ka guuray. naag rakaab ka tirsaneed ayaa Justin soo egtay, halka uu isaguna dib u daartay bodkastigiisa. wuxuu bodkastiga sheegayaa in kumanaan shimbir ay u soo dhowaanayaan diyaaradda, kuwaasoo soo weeraraya matoorka diyaaradda saacaddu markay ku beegneed 10:21. Justin wuxuu eegay saacadda, waaba 10:21. isla markiiba shimbiro duulaya ayaa soo weeraray matoorkii diyaaradda. Justin intuu booday ayuu dhegihii iska tuuray. isagoo argagaxsan ayuu musqusha galay, wuxuuna ku celcelinayay wixii dhacay way dhaceen. wuu isdejiyey oo wuxuu ku soo noqday kursigiisa. Justin ayaa u wacay mid ka mid ah shaqaalaha oo wuxuu weydiiyey inay shimbiro soo weerareen matoorka diyaaradda. shaqaaluhu taas ma hubo, balse wuxuu u xaqiijiyey inay ku duulayaan joog aysan shimbiruhu gaari karin. Justin wuxuu bilaabay inuu doodo oo waxaa laga codsaday inuu codkiisa hoos u dhigo. Markaas ayuu Justin isdejiyey. gadaashiis waxaa soo fadhiistay Joe, kaasoo u sheegay in wixii hadaatay ay shimbiro ahaayeen. waxaa kale oo uu ninkan sheegay inuu baylot ka ahaan jiray shirkadda diyaaraddan oo uu la shaqayn jiray shaqaalaha diyaaraddan oo ugu horeeyo Captain Donner, Nick iyo Tammy. wuxuu u xaqiijiyey in duuliyaashu ayna cidna u sheegaynin haddii ay dhibaato jirto iyo haddii kaleba. Joe wuxuu ku noqday kursigiisa. aynu dib ugu soo noqonno bodkastiga. ninkii bodkastiga tabinayay wuxuu sheegay wax kasta oo ay ka ogaayeen duulimaadkii la waayey ee 10:15. wuxuu sheegay in erayadii ugu dambeeyey ee duuliyaha laga maqlo ay ahayd habeen wanaagsan New York. wuxuu sidoo kale sheegay in duulimaadkan la waayey saacaddu markay ahayd 11:15 PM, laakiin lama garanayo sababta rasmiga ah ee loo waayey. markaas duuliyaha ayaa dadka mikrofoonka kala hadlayay, isagoo u sheegaya inay jiraan duufaano daran, balse ay wax walba caadi noqon doonaan. jabtarka saddexaad ee bodkastiga waxaa ciwaan looga dhigay faahfaahinta duulimaadkii 10:15. tabiyuhu wuxuu sheegayaa in 117 rakaab ay diyaaraddu saarnaayeen markii la waanayay, oo keliya cadeymo yaryar ayaa laga helay siday wax u dhaceen. Justin wuxuu bilaabay inuu wax noodgaraysto, kadibna wuxuu dhex wareegayay diyaaradda isagoo tilmaamo raadinaya. waxaa la ogsoon yahay in shirkadda diyaaraddan ay ku xiran yihiin kaamarado, sidaas darteed haddii ay xaalad degdeg ah duuliyaha qabsato waxay u badan tahay inay dadku ogaanayaan. markay diyaaraddu dhex maraysay bartamaha gugacii dabaylo ayaa duuliyuhu wuxuu si degan ula xiriiray shaqaalaha oona wax walba waa uu dejiyey.
Justin cod yara dheer ayuu maqlay, wuxuuna arkay laba nin oo siiq ah kuwaas oo uu ku wargeliyey inay teleefankooda damiyaan, laakiin waa ay ka diideen. Wuxuu bilaabay inuu caroodo, iyadoo ay markaas shaqaalihii soo kala dhex galeen, iyagoona ka codsaday inuu meel fadhiisto. Isagoo cagajiidaya ayuu codsigooda aqbalay, wuxuuna sii watay dhegeysiga bodkastigii. Tabiyuhu wuxuu sheegay inuu jiray qof aan sidaa caan u ahayn oo xagga hore ee diyaaradda fadhiyey, kaasoo ahay muwaadin Raashiyaan ah oo lagu magacaabo Igor Olaf. Igor kor ayaa laga waardiyeynayay, wuxuuna u socday Tel Aviv si uu ugu marag furo dhibaato ay geysteen koox maafi Raashiyaan ah. Macquul miya in Raashiyaanku ay diyaaraddan beegsadeen si ay ugu suurto gasho inay ninkan dilaan? Sidoo kale waxaa bodkastiga lagu xusay inuu diyaaraddan saarnaa sargaal sare. Lama hubo in uu diyaaraddan u saaran yahay si uu Igor u ilaaliyo. Justin wuxuu u tegay mid ka mid ah shaqaalihii, isagoo ka codsanaya inuu rabo inuu la hadlo sargaalka diyaaradda saaran, laakiin iyadu kama warqabta in sargaal uu rakaab ka mid yahay. Justin wuxuu ku adkaystay inuu saaran yahay. Haweeneydan waxay Justin ka codsatay inuu kursigiisa ku laabto, oo Justin wuxuu ag fadhiistay Joe, wuxuuna weydiiyey inuu isagu sargaalka yahay. Joe wuxuu ku jawaabay maya, inkastoo uu Justin aaminsanaa inuu isagu yahay. Joe ayaa Justin kula taliyey inuu rabshad sameeyo si uu u ogaado qofka sargaalka ah. Justin wuxuu markaas u jeestay dhanka raggii Raashiyaanka si uu u baaro boorsooyinkooda. Markii ay rakaabku arkeen ayaa wuxuu isku dayay inuu sanduuqii kala furo, oo boorsadii ayaa Igor ku soo dul dhacday. Raashiyaankii ayaa aad u xanaaqay, inkastoo Justin uu isku dayay inuu dejiyo, isagoo uu sheegaya inuu garanayo sababta ay diyaaradda u saaran yihiin. Iyagu waxay ku adkaysteen inay u socdeen ciyaar saaxiibtinimo oo Tel Aviv ka dhacaysay. Shaqaalihii ayaa yimid oo isku dayay inay khilaaf ka dhex galaan. Xitaa kabtankii diyaaradda ayaa soo baxay si uu qof walba u dejiyo. Waxaa Justin loo sheegay inuu khatar ku yahay badbaadada rakaabka, oo ayna tahay inuu kursigiisa ku laabto. Isagoo weli diyaaradda dhex wareegaya ayaa Justin wuxuu bodkastiga ka maqlay in uu jiray qof diyaaradda saarnaa oo waxaan oo dhan u sabab ahaa. Qofkaasi waa saxafi dambibaare ah oo lagu magacaabo Justin Sanderson. Tabiyuhu wuxuu dhahay haddii aad mar un maqashay qisadan, waa qasab inaad Justin maqashay. Muuqaalkii laga soo duubay isagoo diyaaradda fowdo ka dhex wada ayaa qadka la soo dhigay daqiiqado ka hor inta aan diyaaradda la waayin. Codka muuqaalkaas ayuu bodkastiga ka dhex maqlay, wuxuuna muuqaalkaas ahaa midkii uu Justin la dagaalamayay raggii Raashiyaanka. Duuliyaha ayaa u yimid oo Justin ku amray inuu fadhiisto. Markii uu diiday ayaa waxaa loo kaxeeyey qaybta hore ee diyaaradda, isagoo lagu tilmaamay inuu waalan yahay. Markaas Justin ayaa saacadiisa eegay, wuxuuna ogaaday in 11 PM la gaaray. Wuxuu duuliyaha ka baryay inuusan oran ereyga habeen wanaagsan New York, ama haddii kale ay tani noqonayso ereyga ugu dambeeya ee diyaaraddan laga maqlo. Duuliyuhu wuxuu tani u arkay hanjabaad, oo si lama filaan ah ayaa mid ka mid ah rakaabkii isaga kor kula socday uu gacmaha ka jeebadeeyey. Wuxuu gartay inay haweeneydan tahay sargaaladda, oo kursigiisa ayuu ku noqday. Hagaag ugu yaraan hadda wuu gartay Anfila sargaalkii uu raadinayay. Markii uu waqtigu gaaray 11:10 ayaa ay sargaaladu Justin u sheegtay inay maqshay waxa uu sheegayay, laakiin waxay xasuusay in bodkastiyadu aysan saadaalin karin waxa dhacaya mustaqbalka. Justin wuxuu sargaalkan u cadeeyey inuusan ku ciyaaraynin, oo ayna u badan tahay inay musiibo ku soo socoto diyuuradda. Sargaalada ayaa loo yeeray, waxayna ka tagtay MP3gii. Justin ayaa soo qabsaday oo bilaabay inuu bodkastigiisii dhegaysto. Tabiyaha ayaa sheegaya in qisada diyaaraddan ay qariib tahay, sababtoo ah wax jawaab ah looma helin waxa ku dhacay. Saacaddu markay maraysay 11:15, rakaabka iyo shaqaalaha waxay u muuqdeen kuwo aan kabar qabin wax xiga ee dhici doona. Balse su'aasha kaliya ee taagan ayaa ah, ma laga hortagi doonaa musiibada soo food leh? Joe wuxuu soo ag fadhiistay Justin, isagoo u sheegay inuu hadalkiisa rumaystay. Justin ayaa ninkan u mahad celiyey, isagoo sheegay inuu garanayo waxa soo socda. Joe maadaama uu pilot yahay fikrad ayuu hayaa, oo wuxuu rabaa inuu si nabad leh diyaaradda ugu dejiyo Canada kahor inta aysan burburin. Balse Joe wuxuu sheegay in uusan geli karin shirka diyaaradda maadaama uusan garanaynin koodka albaabka lagu furo. Justin ayaa koodkaas garanaya, waana 10:15. Joe ayaa istaagay oo Justin u sheegay in marka uu shirku galo uu qof walba suuxin doono si ay u hurdaan oo ayna u welwelin. Wuxuu Justin u keenay daasad oksijiin ah si uu caadi ugu sii neefsado. Joe wuxuu u muuqdaa mid wax fiican sameynaya si uu dadka u badbaadiyo. Joe ayaa kacay oo gudaha shirka galay. Rakaabku waxay shaashada ka arkayeen Joe oo garaacaya duuliyaashii. Dadku way argagaxeen, oo Joe oo sameecadda ka soo hadlaya ayaa rakaabkii nasiib wacan u rajeeyay inta safarkooda ka dhiman. Dadkii ayuu suuxiyey si ay u hurdaan, halka Justin uu u sii socday dhanka shirka. Isagoo shaashada ka soo hadlaya ayaa Joe wuxuu sheegay in wixii tagay ay tageen oo aana dib loogu noqon karin waxa dhacay. Wuxuu Justin uga mahad celiyey inuu siiyey fursad uu kaga baxsan karo musiibadii soo socotay. Markay shaqaalaha kontaroolka hawada la soo hadleen ayaa Joe uu macsalaameeyey, wuxuuna ku jawaabay habeen wanaagsan New York. Justin wuxuu goor dambe gartay in Joe uu ahay duulihii dhibtan u horseedi lahaa.
Justin ayaa ka soo toosay xeeb isagoo ay shandado iyo qolfooftii diyaaraddu ag yaalaan. Intuu istaagay ayuu arkay MP3gii oo dhinac yaala, waana uu shiday. Waxa u daarmay bodkastigii xigay kaasoo ciwaankiisu ahay dhammaadkii musiibada. Ninkii tabinayay ayaa bilaabay inuu sheego in bodkastigoodii ugu dambeeyey ay moodayeen inay daaha ka qaadeen wax walba oo ku saabsanaa duulimaadkii la waayey ee 10:15. laakiin dhowr bilood kadib waxay ogaadeen in markab xamuul ah oo meel cidlo ah ku halaabay uu arkay goobtii ay diyaaraddu ku dul dhacday. waxayna ogaadeen in qof walba oo ka tirsanaa rakaabkii duulimaadka 10:15 uu badbaaday. haa, qof walba uu badbaaday marka laga reebo Justin. dhammaan rakaabkii midkoodna ma sharxin waxa Justin ku dhacay. markaas waxaynu aragnaa shaqaalihii iyo rakaabkii badbaaday oo Justin u soo dhowaanaya si ay u garaacaan, halka uu isaguna ku andacoonayay inuu rabay inuu keliya badbaadiyo. ugu dambayntii Justin wuxuu ahay wariye dambi baare ah kaasoo aan diyaar u ahayn inuu naftiisa baaro ilaa inta ay xeere iyo fandhaal kala dhacaan. rakaabkii ayaa markaas Justin ku soo xoomay iyagoo garaacaya maadaama uu dhiiqo lugaha u geliyey. subscribe saar kanalkan si aad u hesho muuqaalo badan oo kan oo kale ah. furo gambaleelka oo noo reeb like si aad u caawiso kanalka. waadna ku mahadsan tahay daawashadaada.